barnaamijkan waxa soo qaban qaabiyay maanta madasha maandaar ee dhiirigelinta dabcan dad badan oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta laftirkooda inala joogta maanta waxa jirtay xafladii furitaanka barnaamijkan ama madashan inay nagala soo qayb galeen ma sha Allah waxaana nasiib u yeesheen mar kale inay nagala soo qayb galaan annagoo gaarnay mid ka mid ah hadafyada ugu waaweynaa isugu jira labo qaybood oo kala ah xuska aasaaskii madasha oo laga joogo muddo hal sano ah maanta iyo sidoo kale mid ka mid ah hadaftii ugu waaweynaa ee loo aasaasay oo isagana la hirgeliyay insha Allah kuwii kalena la rajeynay in la bilaabo intii hore ula socotay iyo inta kaleba dalku wuxuu ka bilowday waxa weeye qofku marka hore inuu asagu dabcan naftiisa bedelo naftiisa markuu bedelo waxaas iimaanaysa in boos ka mid ah bulshadii uu hagaagay booska markuu hagaago dabcan wuxuu awoodi karaa inuu boos kale hagaajiyo taas waxay keentay in hawshii ugu badnayd aan qabanaynay ay inaga nagu saabsanayd anagu aan isdhisaynay inagu aan wax akhriyeynay inagu aan wax la yiraahdo shaqooyin hoose qabanaynay oo aan isku dayno in bal horta marka hore inta aan dadka wax u sheegin anagu aan wax isku sheegno dhalada maran iyo mid wax ku jiraan saddeexda marka la yiraahdo mid wax ku jiraan waxa ka qayla badan mar walba ka sharqan badan waa mid maran annagoo ka duulayna inaysan noqonin hawlahan qabanayno saas oo kale oo annagoo maran aan wax iskala orodno ayaana muddadaas waxa nagu qaadatay inaan bal isku dayno inaan annagu kow ka noqono cid aan rabno inaan wax u tarno oo ay nafteenu kow ka noqoto alxamdulillah wax badan way qabsoomeen wax badanna way dhiman yihiin haddii aan yara sheego muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay madashu waxyaabaha ay qabatay dabcan aad bay u fara badnaayeen waxaase ugu waaweyn 6 qodob oo aan rabo maanta inaan idinla wadaago markhaatina aad ka noqotaan sida qayb hore idin ka mid ah ama dadka inta ila jooga maantana badankoodu ay markhaati ka yihiin waxay ahayd kow qodobkii ugu horeeyay aan rabnay wuxuu ahaa inaan sameeyno wax la yiraahdo maktabado wax lagu akhristo oo dhalinyaradu wax ku akhristaan taasoo maanta maalintii midii ugu horeysay aan garoobo ka hirgelinay ayna diyaar tahay furitaankeena aan idinku wacnay aysan garowana ku ekeyn si aan rabno meel walba oo awood u gaarto in laga furo maktabadahaas barnaamijka labaad oo loo asaasay maktabada wuxuu ahaa madash maandaar wuxuu ahaa inaan furno ama aan ka sameeyno magaalada meel aan ku magacawnay maandaar talks ama af Soomaali ahaan bandhiga oo kale sida maaragtay meelahan TED talks oo kale oo dadku ay ku sameeyaan dhalinyarada fikradahooda ku soo bandhigaan taasna ay awood u siiso dhammaan dadka ku nool Garowe dhalinyarada ah meel ay ku soo bandhigi karaan fikradahooda u diyaarsan hoolashiil leh wax walba leh in ayadana sameeyno waa qorshaha labaad ee ku xigay kan ugu dambeeyay wuxuu ahaa inaan hirgelino maadaama hadda adduunku u guuray dhanka digitalka wax la yiraahdo mareeg internet oo dhammaan barnaamijyada la qaban doono ama soo socda ama kuwii horeba lagu kaydiyo lagana socdo cidii marka aan joogin meesha waxaasi ka socdaana lagaga qayb galiyo oo ay ka helaan fursad ay kaga qayb galaan kuna xirta adduunka intii kale saddexdaas qodob waa saddexda ugu waaweyn qodob ee loo asaasay madasha maandaar haddii aan u gudagalo waxyaabihii soo qabsoomay kow waxa ugu horeeyay barnaamijka akhris wadareedka jimcaha oo ay madashu qaban jirtay jimco waliba kaas oo loo soo diyaarin jiray dadka dhalinyarada ah meel ku habboon oo ay ka helayaan agabkii wax akhriska sida buugtii kuraastii jawigii ku habboonaa iyo sidoo kale waxa la yiraahdo refreshmentiga ama wixii maaragtay ay ka dhigan lahaayeen wax la yiraahdo maadaama qofku marka wax akhrinayo u baahan yahay refreshment intuba ay u diyaarsan yihiin oo qofka wax kale aan laga rabin just inuu yimaado waxana akhriyo ay muhiimad u ahayd ka bacdi maxaa ka soo baxayay waxay ahayd in jimcada ku xigta qof ka mid ah dadkii meeshaas joogay la siiyo fursad uu ku falanqeeyo wixii uu akhriyay asbuucii la soo dhaafay mowduuc ka mid ah mowduucaasna la faguro dabcan wixii uu ka fahmayna uu dadka la wadaago
si ay ugu noqoto dhiirigelin iyo inuu qofkii kow ka barto wax la yiraahdo public speaking ama inuu dad ka hor hadlo laba inuu fikradiisa ama waxa maartay uu isaga ka guuxay sheegi karo saddex inuu qeexi karo waxyaabaha maartay uu bartay inuu sida yihiin dadka oo kale uu gudbin karo waxyaabahaas oo dhan ayaa laga lahaa alxamdulillah in badan wuu qabsoomay in badanna oo la rabay inuu xiriir ahaadana way suurto gali weyday laakiin waa wax aan marnaba joogsanaynin oo la rabo in siday tahay loo wado hadeerna ay fursadda ugu weyn ee furan tahay oo ah maadaama loo sameeyay goobtii gaarka ay u lahayd madashu qodobka labaad ee aan rabno inaan halkan ka sheegno oo u hirgalay madasha waxa weeye samaynta buugta muraajacada dugsiyada sare sanadkii la soo dhaafay 2018 qadabayaaqadiisii waxaa noo suurta gashay inaanu sameeyno wax la yiraahdo 7 sano may 8 sano oo la soo dhaafay imtixaanadii ay qaaday wasaaradda waxbarashada Puntland inaan ku sameeyno 4 maado oo scientific inaan soo aruurinay aan soo aruurinay ma xume inaan la kaashanay macallimiintii diyaarin jiray imtixaanaadka oo kale ka bacdina ay su'aalahaas 8 sano la soo dhaafay ay ka jawaabeen khayr Allah siiyo in badan oo kamid ah si volunteer noola shaqeynaya waxa buugtaas lagu sameeyay wax la yiraahdo su'aal iyo jawaab laga dhigay maadaama imtixaanku su'aalo yahay jawaabihiisa baa lagu daray waxaana awood u helay dad badan oo aan xataa garow joogin inay ka faa'iideystaan marka imtixaanadu soo fool leeyihiin waliba noocaas oo kala waxa qodobka saddexaad yahay barnaamijka fariimaha mandaar oo ahaa barnaamij si asbuuc la ah baraha bulshada uga baxa waxyaabo badan isugu jiray muuqaalo qoraallo qormooyin maadaama qofkii in ay buug intuu soo qaato uu akhriyo hadeer yara adkaatay ay tahay wax hadda aan isku dayno in aan sameeyno wax la yiraahdo mowduuc xasaasi aan aragno markaas oo qof kasta oo dhan yara inuu ogaado oo kale inay tahay inaan soo daabacno si xoogaa farshaxamaysan qofkiina uusan ka daalaynin akhris kaliya aan ahayn oo sawirray wax la socdaan annagu intaan soo daabacno inaan ugu geyn jirnay goobaha dadku iska fadhiyaan markay meheradaha joogaan oo kale inaan u qaybino si ay waqti kamid ah waqtiga ay meeshaas iska joogeen ama shaaha iska cabeeyeen waxyaabo kale uga sheekeynayeen ay ugu bixiyaan akhris tabcan in badan wuu qabsoomay doonta insha Allah barnaamijka afraad wuxuu ahaa wacyigelinta goobaha waxbarashada oo aan ayagana tagi jirnay maalmaha daabuurka la leeyahayna aanu ka qaadan jirnay mowduuc muhiim aan u aragnana marka mar walba aan la wadaagi jirnay oo ahaa barnaamij joogta u baxa sidoo kale waxa kamid ah waxa doodaha loo yaqaan ama dadka in dhalinyarada la isu keeno ay maaragtay mowduuc gaar ah falanqeeyaan ama panelka oo kale kaasna wuu jiray marka waxa ugu dambeeyay maanta aan ku soo koobayo sanadkaas wixii noo qabsoomay waxa weeye mid kamid ah ma dhahayo macnaha waa wax dhameystiran laakiin mid kamid ah maktabadihii aan rabnay inaan sameeyno oo maanta noo suurta gashay siday doontaba ha ku soo socotay inay waqti qaadatay laakiin maanta ay tahay maalinka aan xariga ka jari lahayn bulshada reer Garowana oo saan filayo hadeer dhalinyaradii ay wax yar nagala joogaan sababtana kulay jaamacadaha waxaas in la jiraan jecelahay laakiin hadeer adduunku waa social media oo markii arkaan insha Allah way iman doonaan aan fursad u siino ay ku akhristaan adeegyo badan oo hadeer meesha kala kulmi doonaan aan ku diyaarinay aan akhris kaliya ahayn waa ujeedada ugu weyn oo maanta aan xaggaas ugu imaanay waa furitaanka maktabadda madasha mandaar